بسم الله وعن حرق درينا لبدي قل مركز أبو بكر الصديق لغد السيد أيام حرق درينا كل قد بين إلهي كمدقة. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. xafladan oo ahayd mid siyaarsaraha loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay markaska Abubakar Sidiiq ee degmada Balad Xaawo. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida maamulka markaska, waalidiin, culamaa u diin, macallimiin iyo ardaydii wax ka baranaysay markaskan Abubakar ee xarunta lagu waxbaro carruurta agoonta ee Soomaaliyeed. ujeedka xafladan ayaa ahayd xarig jarka fasallo cusub oo lagu soo kordhiyay fasalladii hore ay ardayda agoonta ahi ku waxbaran jireen. fasalladani cusub ayaa waxaa maalgeliyay qaar ka mid ah shacabka dowladda Imaaraadka Carabta ayagoona u soo marsiiyay mu'asasada khayriga ah ee Salaam Relief Foundation, taasi oo dhismaha fasalladani ka fulisay xarunta madrasada iyo iskuulka Abubakar Sidiiq ee degmada Balad Xaawo. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulka mu'asasada Salaam oo hawshaasi fulinayay. ikhwaani fillah maantayda oo ah maalin sabti ah 17 bishii dilxij 1443 الموافق 16 bishii 7 2022 waxaan xafladan qiimaha badan ay soo agaasimeen معهد أبو بكر الصديق للأيتام وهي مؤسسة سلام شرافي سهوشة حفلة أن أفضل إن لما فصل لقصة زيادية حرونتا أبو بكر الصديق لما فصل يكبر ويؤبى عنها هاي ولكن الله سبحانه وتعالى وحو قدري إن لما فصل إخوة يوصلوا دميين محسنين كترسن دولة الإمارات وعدد أشخاص معها هيئة أشخاص كترسن شعب كمسلمين والله النجا الإمارات يقصوا تبرعين معهد إيجو مركا إذا أسوا مريي أما أسوا دمي هوشا إذا والله النجا شعب قادر دل بلو جزاه الله خير الجزاء ونسوا مريي مع السلام ريليف فاونديشن مؤسسة سلام ريليف فاونديشن واسكاله تنفيذ كأما فلنته waxa ay fulisa insha Allah ta'ala ugu horeeya labadan fasal agoonta macadka markaska Abu Bakr Sidiiq mala ugu dambeyn doonto insha Allah ta'ala mu'assasada Salaam Relief Foundation waxa ay ka shaqeysaa hay'ad khayri ah weeyaan howlaha samafalka oo ogtihiin sida duul cibaada iyo malcamadaha masaajida iyo madaarista iyo macaahida wakadalika waxay ka shaqeysaa majaalka khayriga ah tabarucaada dadka dhibaataysan ama raashin ha ahaata ama dadka abaalaha ay halakeeyeen oo biila'aanta ku dhacday miyi magaalaba wax bay ka soo qabatay iminkana u taagan tahay inay sii wado mashwaarkeedii ay kamisho ay mar walba habeen imaan u taagan tahay waani barakallahu fiikum waxaad ogaataan waxqabadka qofka markuu wax qabanaya lagama eego meeqaa kunoo shinada ku qabatay lama eego meeqaa kunoo doolar lama fiiriyo maxaad qabatay baa la fiiriyaa waxa raasamaalka uu qofka qabtay ayaa wax lagu qaybsadaa wax la taaban karo oo tayo leh oo wanaagsan oo bulshada ay u aayayso oo waqtiyo badan soconaya haddii uu qofka isaga waxaa weeyaan shaqadii amaanadii loo igmaday uu ka soo baxay. munaasabadda aan maanta joogno waa munaasabad ama xaflad xaragga looga jarahayo laba fasal oo dheeri ku ah xarunta agoonta degmada Balad Xaawo. labada fasal waxaa bixiyey lacagtooda oo weli intaasi dheeri ah masjidka hadda dhex fadhino waa la dayactiray si qurux badan baa loo dayactiray lacagtaas waxaa la soo baxay dad ahlu khayra oo dowladda Imaaraadka Carabiga Carabta degan baa la soo baxay marka annaga mu'assasa ahaan waxaanu u xilsaarnay fulinta mashruuca dhismaha dhagaxkii ka soo bilow iyo maanta aan joogno oo aanu daarfurkii ama xarag jarkii aan u joogno weeye marka waxaan ugu mahadnaqaynaa marka hore walaalaha muxsiniinta faaciliina alkhayrka reer Imaaraat
waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah qof walaalkii waxana u qabta aan ugu mahadnaqin dee ilaahay uguma shukrinaayo hooyaan waxaa inoo daba yaallo oo mahadnaqaas aanu gaarsiinayna walaalkiina sheekh cabdulqaadir cabdilla bilow oo isna barnaamijkaas ka soo shaqeeyey walaalaha muxsiniinta lacagtaas ka soo qaaday isna waxaan leenahay mahadi ha kaa gaartaan leen insha allahu tabaaraka wa tacaala fursaddan waxaan ugu faa'iidaysanayaa inaan halkan ugu mahadno walaalaha mu'asasad salaam guddigooda ugu sarreeyo kurbanjoog iyo qaranjoogba waxaan leenahay maasha allah. dhanka kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka culamaa udiinka iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qaybgalay xafladdan. waxaan ka soo qaybgalnay xaflad lagu qabanaya markiiska abibakar as-sidiiq lil aytaam fi madiinati balad xawaa gedo xaflad lagu qabanaya markiiska abibakar as-sidiiq ee agoonta degmada balad xaawa ee gobolka gedo xafladaas oo ah 2 fasal oo agoonta loo dhisay daahfurkeeda taariikhda maanta waxay tahay 17 bishii dilxija 1443 oo waafaqsan 16 bishii 7 2022 maalin sabti ah maalintan xafladdan ka soo qaybgalnay waa xaflad aad iyo aad u wanaagsan qalbigana uu jecel yahay indhahana ay ku riyaaqayaan waa markiiska agoonta ee degmada balad xaawa oo loo dhisay 2 fasal siday iyagoo u farxayaan ayaanu maanta haddii aan nahay culummada degmada balad xaawa oo afkooda ku hadlaya ayaan ola farxaynaa. xafladdan lagu daafuraya 2 qol oo waxbarashada muxuu ahaa madrasada markaska abubakar sidiiq ee degmada balad xaawa ee agoonta loo dhisay waa runtii camal wanaagsan weeye camalkaas saalixa ahna dee ilaahay baa yacni maaragtay abaalmarinaya ilaahay qur-aankiisa kariimku wuxuu ku leeyahay man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan dayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun camal wanaagsan qofkii sameeyo rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee asagoo mu'min ah gaal shardi baa ku xidhan mu'min inuu yahay baa shardi ah gaalka camalkiisu waxaa weeye faa'iido malino sida axaadiista rasuulku uu ku sheegay hadduu gaalka samafal bixiyo ama camal wanaagsan adduunkaa lagu quudinaya lagu barwaaqaynaya aakharana wax u jira male laakiin qofka mu'minka adduun iyo aakharaba ilaahay baa ku barakaynaya camalka wanaagsan uu sameeyey sidaa darteed baa alla wuxuu leeyahay camal wanaagsan ninkii sameeyo asagoo mu'mina rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee falanuxyiyannahu xayaatan dayiba wallaahi nolol wanaagsan baan ku noolaynaynaa walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun adduunka intuu joogo nolol wanaagsan buu ilaahay ku noolay aakharana ilaahay wuxuu ku abaalmarin yacni kii ay camal faleen midka ugu wanaagsan baa ilaahay ugu wada jaangoynaya acmaashiisa oo dhan marka acmaashaa wanaagsan aan ku dadaalno waxaa hadda meesha laga sameeyey waa shay wanaagsan waa sadaqa jaariyaad rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay idaa maata alinsaanu inqadaca camalahu ilaa min 3 qofka insaanka oo bani aadamka markuu dhinto camalkiisu waa go'a xasanaad iyo sayi'aad midna uma soconayaan ilaa 3 shay waxaan ka hayn ilaa min sadaqatin jaariya sadaqa jaariya ayadu ma go'ayso binaa'u almadaaris walmasaajid wa xafru alaabaari waxaa weeye masaajidoo la dhisay iyo madaarista ceelashoo la qodo beeraha yacni maaragta aseedooyinkoo la waqfa waa kuwa ayaga way sadaqada jaariyada kuwa ayaga yacni maaragtay sadaqa jaariya way ma go'ayso. waxaa kale oon halkan ka ammaanaynaa culamaau mu'asasatul oon isugu kaana soo yeertay haddii aan nahay dhaqankii ummadda aan nahay isugu kaana soo yeertay oo noo dhigtay xafladdan quruxda badan ayagana waa mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadsan dadkii ka qayb qaatay oo talo iyo tawfiiq ku lahaa oo arrintan soo curiyey oo arrintan keenay ayagoo ilaahay dartiis ula jeeda
dadkaasna waa mahadsan yihiin. waxaa kaloo mahadsan dadkii dhaqaalaha ku bixiyey oo juhdiga faraha badan ku bixiyey labadaas qol oo hadda la sheegayay ii sheeg maxay ahayd soo dhisay oo u soo dhisay ilmahooda agoonta inuu wax lagu bara ayagana aad ayay u mahadsan yihiin. waxaan maanta halkan isugu nimid xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo ka mid ah xafladaha bulshada mustaqbalkeeda lagu hagaajiyo, ka mid ah xafladaha horumarka iyo isbeddelka degmada ka jiro. waa xaflad aad iyo aad u karaamaysan. awalan dhammaan cidda ka qayb qaadatay horeyna waa loogu duceeyey. ducadaas allah tabaaraka wa tacaala ka aqbalo ayaan leenahay. waxaan isugu nimid xarig jarkii labadii qol ee ay soo sadaqaysteen walaalaha imaaraadka. sheekh cabdiqaadir cabdulla bulowna uu soo gudbiyey oo uu soo gaarsiiyey muasasada salaam iyo ragga howlweernada masjid abubakar sidiiq iyo xarunta agoonta abubakar sidiiq. waxaa weeyaan xafladda yaan isugu nimid oo aad iyo aad u qurux badan. laba nuqdood waan isugu nimid oo ah inaan u duceyno dadkii ka qayb qaatay arrintaas geystay. ilaahi subxaana watacaala fi dunya wal aakhira kama dhumiyo. midda labaadna ummadda lagu baraarujiyo dhammaan khayrka socda inay ka qayb qaataan madaarista iyo masaajidda iyo meel walba oo khayrka horumarinta bulshada iyo deegaanka uu ka socdo in laga qayb qaato. waa khayr adduunya aakhiraba adigana alla kugu badbaadinaya adduunyada aakhirana waxaa weeyaan sharaf ku ah. walaalihii arrintan ayada fuliyey mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay iyo kuwii soo dhiibayba ilaahi subxaana watacaala ha cizeeyo. muasasada salaam oo ayadana waxaa weeyaan ishraafka iyo arrintaas ayada fulinteedana laheedna waxaan leenahay ayagana kuwii bulshada usii adeegahaya oo khayr ka qayb qaadanaya ilaahi subxaana watacaala ha ka waad aragtaan hawshii say u dhacday waad u jeedaan markaskii sida loo hagaajiyey iyo masaajidda iyo hawshaas waad u jeedaan. biidmillaahi kariim ilaahay baa mahadle. waxaan u mahad celinaynaa sheekh cabdiqaadir cabdulle bulow. ilaahay idinkii allaha ku barakeeyo, allaha ku barakeeyo. adigoo kalena ummaddan allaha ku badiya, adigoo kalena allaha nagu badiyo ilaahay idinkii. waddadaasuu ninka ahaayana in la wada qaado qurbo waa la wada joogaa. nin walbana waxaa waaye meel unbuu joogaaye ayagana in saasoo kale loo wada shaqeeyaa loo baahan yahay. haddee wixii uu noo qabtay waan u joodnaa. ilaahay khayr ha siiyo. mu'asasa salaamna hawsha way ka qayb qaadato hawsha hadda ayadaa fulisay. waxaan u mahad celinaynaa inta ka howlgashay iyo inta wax ka qabatay. waan u mahad celinaynaa. khayr badan allahna siiyo. ilaahay towbadan hana haleeshiiyo. الله سبحانه وتعالى وحو جعل يهي ذاتك سقفلياشا أو وناقا إيه مشارع الخيراتك وحكو بحيه من أحياها فكانما أحيا الناس جميعا أغوطا الله أيين باهيين وحلو باهيين ذاتك سقفلياشا هايد إماراتك وإسو جبتي ولالك الشيخ عبد القادر أيضا وهم مهد علينا محمود مهد علينا وكله مؤسسة السلام oo ka qayb qaadatay barnaamijyo badan oo kaabayaasha waxbarashada ceelasha dhanka quudinta abaaraha insha Allah taala waxaan rajaynaynaa khayr حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتبنا لها من لا يشكر الناس لا يشكر الله من كان أمده كل شكر من الله سبحانه وتعالى كل شكرية حارونتا أبو بكر صديق وحان حلفدة هو إماني نقعد دقنك نبضيالك للنيرادي علم الدينك أنت بماشي وأكو إذن هاي مال قرح بدن وقرح بدن وقرح بدن وملايين عرور أي جوكتو ودريال كودي وناك كودي للعد شبيه يانو إماني ما أنت دافردان أنو إماني ومال يابله أنت دستي أنت سوديبتي أنت دقالها بحسي أنت قعنت كويسو ومهتيهين وردعيسيهين مالكون الله بركة أيون الله بركة وحلينا إن شاء الله وأنت هذه حفلة سوق بقابسي وجدك هذه مؤسسة السلام لبض قول هذه كسر كل شيء لبض قول اسمها وهذا وكيلك أيوة هاي أنت محسنين تو هذه جلسي مال مسكح وحلينا إن شاء الله والله بركة كو خدمي كو مالك سوق بحيي كو اسمها كسر كل شيء أقومته
waxaan leenahay insha Allah maalkiina maal barakaysan Allah ka dhigo waxaan ka socdaa dhanka macallimiinta halkan waa macad Abubakar As-Siddiq Liitaan ayuu macruuf u yahay waa markas kulmiyey khayr tiro badan tacliimta ilmaha aqoonta xagga quraanka diinta lagu barto iyo kitaabka matunta oo shanta bari shaqayso qayb iskuul oo lafteeda ku jirto qamiisi jimcadan waxaa ka shaqeeya qayb macad oo lafteeda halkaa ka shaqayso oon ka haynay waqtiga maamulaha macadkaas wado dhammaan waxaa ka faa'iidaysa waxaa ka mid ah dhalinyarta ilmaha yararka aqoonta iyo khayrkood oo mataqaana xaafadaha ka yimaado ayaa ka faa'iidaysto marka waa xarun inta badan culamada dhammaan ka hadashay iyo wanaag iyo khayrka tiro badan ka jiro ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo mid lagu dhiibaan fi dunya wal aakhiro intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalaha muslimiinta nagu soo saacideeyey oo muxsiniinta araadka carabta oo labada qof ku daray markaska jazaa allahu khayran ilaahay fi aakhiraha ka abaalmariyo iyo walaalkan al-akh الأكبر شيخ عبد القادر عبد الله بلو إلهي سبحانه وتعالى سنة جنة الفردوس الله على عقيه في الإسلام مرة وجون سوا فعلا كديوا سي أولاد الله احتمال كسوجوه سنة وخير كاس ونقطة مفتاحي يحرريها يوم الله وحان ما علينا يا مؤسسة السلام أو تنفيذ كذا سكالة هوشان يحرمد ودي إلهي حفظيه وقتان أن جوجنو أن هذا فدينو أعماش خيرية أو كلنسن بان آدو فرح سنة لكن دتك مشاركين تكوه أو كقيب قاتي فعلا ماليا دتك سنهنيئا بان ليهي وأتهنيذين يا وانا دد إلهي سبحانه وتعالى خير لدوني goobtaan aynu fadhinno waxaa ku kulansan masjid min masaajid illaahi subxaanahu wa tacaala masaajidda ilaahi subxaanahu wa tacaalaana waa meesha ama bugcada ugu karaamada badan dunidan aan ku dul soconno ama dhulka waxaa kaleetoo meeshaan hadda ka mid ah kafaalatu aytaam kollay dadku wada garanayaan oo malayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan qofka hal cunuga oo yatiim ah kafaala qaata ana wa huwa kahatayni fi ljanna waxaa kaleetoo meeshaan ku sugan tacliimu lcilm cilmiga oo la isbaraya oo madrasatu abubakar asidiiq ayaa ka mid ah cilmigana waa barasho iyo juhdi iyo dadaal kulankan maanta waa kulan khayraysan aan u fadhino oo ah in maanta halkan lagu xarg jaraayo labada qol oo loo dhisay aqoonta waxaan marka mahad celinaa allah subxaanahu watacaala ثم dadkii juhdigu ku bixiyey inay suuro gasho in maxaan ku radaa labada qol maanta la dhiso oo ay kow ka tahay dadkii muslimiinta oo la soo baxay iyo walaalkanaga ay soo xiriiriyey iyo Salam Relief Foundation oo implementationka ama maxaan ku radaa fulinta lahayd intaas baa iyaga ugu mahad celinayaa runtii farxad gooni bay ii tahay waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor ayadoo halkan bisay carruurta joogaan sabuuradan halkan ku saaran tahay meeshan kaliya wax ku baran hayaan maantana waad arkaysaa markas intuu leeyahay intaas dad muxsiniin ah gacanta ku hayay oo soo wada halkan soo gaarsiiyey dhammaanna waad ku mahadcelinayaa insha allah marka kule waqtigu waa iska gaaban yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله